kooxo burcad ayaa waxa ay weerar ku soo qaadeen goob ganacsi oo ay lahaayeen ganacsato Soomaaliya oo ku yaala xaafadda Khaliija ee dhacda duleedka magaalada Cape Town abaar 9 fiidnimo xilliga South Africa. Burcad ayaa weerarka waxa ay ku toogteen nin kamid ah muwaadiniinta Soomaalida ay halka joogay xilli markaa uu tagay goobtiisa ganacsi, waxaana sidoo kale weerarka ay ku dhaawaceen laba kamid ah dhalinyarada Soomaalida ee halka ka xamaasha. Falka kadib ayaa kooxda burcad waxay halka ka qaateen lacag iyo alaabo kale oo fudud sida ay noo sheegeen qaar kamid ah ganacsatada deegaankaasi oo aan la xiriirnay. labada dhaawac ayaa la geeyay isbitaalka magaalada Cape Town si dhaawacooda halka loogu dabiibo, iyadoo midka geeriyoodayna lagu aasay qabuuraha muslimiinta ee xaafadda Adloon. dhanka kale ilaa 3 gaari oo ilaahayeen ganacsato Soomaaliya ayaa waxa lagu dhacay deegaanka BE ee gobolka Eastern Cape xilli ay ku sii jeedeen goobo lagu dukaamaysto ku yaal halkaasi. burcadda dhacday gawaarida ayaa hore u sii qaatay lacago fara badan oo ay doonayeen in ganacsatada ay ugu soo adeegtaan goobahooda ganacsi. lama oga halka loola baxsaday gawaaridaasi, waxaase booliiska gobolkaasi oo lagu wargeliyay arrintan ay wadaan baaritaano la xiriira sida gacanta loogu soo dhigi lahaa kooxaha dhacday gawaarida. muddooyinkii u dambeeyay ayaa waxaa soo badanayay dhaca loo geysto gawaarida Soomaalida, iyadoo 3 gaari ay ka mid noqonayaan tiro gawaari oo ilaahayeen ganacsato Soomaaliya oo wadooyinka loo galay lana qaatay, kuwa oo ilaa iminka aan la soo qaban. Cabdilaahi Qorshe, TV qaranka Soomaaliya, magaalada Cape Town, wadanka South Africa.